kulanti wacan wanaagsan daawadayaal Ramadaan Kariim meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee BIDHAAMIYE TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyaga waxaa kamid noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo faray xukuumadda in ay kor u qaado tayada caafimaad ee xarumaha karantiilka dadka uu soo ridanaya cudurka COVID-19 muwaadiniin Soomaali ah oo ku xaniman dalka Turkiga taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo magacaabis sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor oo magacaabay golihiisa wasiirada kuwaasi oo ka kooban 23 wasiir araxyo qasaare geystay oo ka dhacay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dalka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado iyo qaar kamid ah madaxda isbedel doonka ee ku sugan magaalada Muqdisho oo qaadacay shirkii shalay ay ku gaareen magaalada Nairobi qaar kamid ah madaxda isbedel doonka Jubbaland iyo Axmed Madoobe akhbaraadka caalamka ee ku maqli doontaan BIDHAAMIYE TV-na waxaa kamid noqonaya daawadii u horeysay loo soo saaray cudurka COVID-19 oo tijaabadeedii ugu horeysay lagu guul daraystay fadlan subscribe channelka sidoo kalena gambaleelka furo si uusan ku dhaafin wararka muhiimka ah ee aanu halkan soo gelino hagaaga dhageystayaal isku soo noqod wanaagsan markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay dhanka internetka kulanka guddiga qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19 waxaana uu madaxweynuhu ka xog wareystay guddigan dadaalada lagu xakamaynayo cudurka COVID-19 iyo waliba baahiyaha caafimaad caqabadaha ka jira goobaha lagu baxnaaninayo dadka qaba cudurkaasi guddiga ayaa u soo bandhigay madaxweynaha xog aruurin ay ka diyaariyeen goobaha karantiilka caafimaad taasi oo ay ka muuqatay in ay jirto baahi xoogan oo la xiriirta qalabka caafimaad gaar ahaan neefsiyaha bukaanada waxa uuna madaxweynuhu faray xukuumadda in ay si degdeg ah ugu howlgasho keenista qalabkan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dakhliga uu hoos u dhacay 40% waxaana ay taasi ku sababaysay wasaaradda xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ku sii baahaya hoos u dhaca u weyn ayaa waxa uu ka dhashay lagu xakamaynayo faafidda cudurka iyo canshuurihii badeecooyinka qaar oo la khafiifiyay sidoo kale waxa gebi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee ku xirnaa dalka dibadiisa Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dhaqaalaha uu iska dhimay meelo badan oo ay dawladdu canshuuro ka heli jirtay hoos u dhaca 40% ayuu Bayle ku sheegay qiyaas ahaan in ay tahay 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka Soomaaliya aad u fara badan ayaa waxa lagu soo warramaya inay ku xaniban yihiin magaalooyin ka tirsan dalka Turkiga Soomaalidan oo tiradoodu ay u dhaxayso 250 ilaa 300 oo ruux ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan ku haystaan gudaha dalka Turkiga gaar ahaan magaalooyinka Istanbul iyo Ankara ee dalkaasi Turkiga sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi Maxamed Maxamuud Maxamed waxa ayna muwaadiniintan dowladda Soomaaliya ay ka dalbanayaan in dalkooda dib ay ugu soo celiso maadaama ay ku sii adkaatay in ay halkaasi noloshooda ku sii wataan gudoomiyaha jaaliyadda ayaa waxa uu sidoo kale ta sheegay in ay wadaan dadaalo fara badan oo ay ku doonayaan in muwaadiniintan ay dalkooda dib ugu soo laabtaan isagoona sheegay in ay xiriiryo kala duwan la sameeyeen madax ka tirsan dowladda Soomaaliya saldhig ay deganayeen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ayaa waxa lagu qaaday weeraro iyo qaraxyo kuwaasi oo loo adeegsaday gaadiid lagu soo xiray waxyaabaha qaraxa sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Baraawe gudoomiyaha degmada Baraawe Umar Sheekh Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay toos u soo abaareen xire ay deganayeen ciidamada AMISOM balse la rasaaseeyay halkaasina uu mid kamid ah gawaaridii qaraxyadu ay ka buuxeen uu ku qarxay sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha gaarigii kale in uu ku qarxay meel u dhow madaarka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose Umar Sheekh Cabdi gudoomiyaha degmada Baraawe ayaa waxa uu intaasi ku daray in qaraxii dambe uu waxyeello soo gaarsiiyay garoonka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa si rasmi ah kaga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb golihiisa wasiirada kuwaasi oo ka kooban 23 xubnood golaha wasiirada waxa ka dhex muuqda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Galmudug sida Axmed Macalin Fiqi oo loo magacaabay wasiirka amniga iyo Saabir Shuuriye Nuur oo isagana loo magacaabay
wasiirka dekedaha iyo kalluumaysiga ee galmudug. madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor oo magacaabista kadib warbaahinta la hadlay ayaa yidhi sida tan: ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlay dadaalada lagu xakamaynayo cudurka covid-19 ee dalka ku faafaya ayaa caddeeyey in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada culimowdiinka, dhaqaatiirta, haweenka, dhalinyarada, hoggaanka bulshada rayidka ah, ganacsatada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ay wadajir uga wada shaqeeyaan sidii ummad ahaan looga guulaysan lahaa cudurkan. dhammaan hay-adaha caalamka oo aan la xiriirnay waxaan ku wargelinay in howl kasta oo kale dhinac la dhigo, awooddana laysugu wada geeyo la tacaalida masiibadan. waxaan ku bogaadinayaa in dhammaantood ay nala qaateen, ayuu yidhi ra-iisul wasaare khayre. xasan cali khayre, ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya, ayaa xaqiijiyey in qalab caafimaad dowladdu ay dibadda ka dalbatay dhowaanna dalka la soo gaarsiin doono, islamarkaasina ay u qaybin doonaan maamul goboleedyada dhammaan dalka ka jira. gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado iyo qaar ka mid a madaxda isbeddeldoonka Jubbaland ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo ay qabteen waxa ay ku sheegeen in ay gebi ahaanba aysan aqoonsanayn shirkii maalinnimadii shalay ahayd ee ku yeesheen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. axmed madoobe iyo weliba qaar ka mid a madaxda isbeddeldoonka Jubbaland, qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado ayaa sheegay in aysan matalin ragga heshiiska la saxiixday axmed madoobe, waxaana ay sheegeen in aysan matali karin, islamarkaasina shirkaasi iyo weliba heshiiska ay la gaareen axmed madoobe uusan ahayn mid sharciga waafaqsan. sidoo kaleeta qaar ka mid a madaxda isbeddeldoonka Jubbaland oo iyaguna magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay in shirkaasi ka dhacay magaalada Nairobi uu yahay mid sharciga baalmarsan, islamarkaasina waxa ay ku sifeeyeen in uu yahay mid ay ku heshiiyeen shakhsiyaal walaalo ah sida ay hadalka u dhigeen. waxaana ay sheegeen in isbeddeldoonka Jubbaland aysan matalin raggaasi Nairobi kula heshiiyey axmed madoobe. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sarreeye guuto Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa u magacaabay taliyaal ciidan gobolada Bakool, Hiiraan iyo degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ayaa waxaa gaashaanla Yuusuf Cabdi Cali loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Bakool, halka gaashaanla dhexe Axmed Cilmi Cabdi loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Hiiraan. sidoo kale gaashaanla sare Cabdirashiid Cismaan Colow ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta ee xabsiga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. si kastaba taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sarreeye guuto Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa dhowaan magacaabay taliyaasha ciidamada asluubta Jubbaland iyo Galmudug. waa hagaag dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Bidhaamiye TV. iminkana akhbaaraadka caalamka. daawo loo soo saaray in lagu daaweeyo coronavirus ayaa la sheegay in lagu guuldaraystay tijaabadeedii ugu horreysay kadib markii bukaan lagu duray daawadaasi. tijaabada daawadaasi oo dalka China ka dhacday ayaa la sheegay in aan lagu guulaysan, sida uu qeexayo dukumiinti qabyo ah oo si aan ku talagal ahayn ay u daabacday hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. tijaabada daawada lagu sameeyey wax isbeddel ah kuma keenin bukaanadii lagu tijaabiyey oo aan ka ahayn cadaadis hor leh oo ay dhiigga bukaanada ku keentay, ayaa la yidhi. caalamka ayaana ilaa iyo hadda la tacaalaya sidii uu daawo ugu heli lahaa cudurkan cafraha baan ku haya caalamka si looga hortago. daawadayaal, guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Bidhaamiye TV waa naga intaas. intaa dib u kulmi doonno Ramadaan Kariim. nabadgelyo.